السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعن داوديال ميل كستو دونيدا aad ka joogtaan kuna soo dhawaada Dalmar Official TV. maanta garabkayga waxa fadhiya Maxamed Cabdi Diiriye iyo anigoo Cabdikariim Dalmar. halkan naga daawanaysaana waa Dalmar Official TV. haddii ay tahay markii kugu horeysay na soo booqato fadlan subscribe lana wadaag asxaabtaada. maanta barnaamijka waxa leh oo inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Diiriye isagaa nagu soo dhaweynaya waxaad inoo soo wadaa عدك ما شاء الله وصل سيفتي الله وحول دو سؤال دون ويدينيا وسؤال وسكوب كوبان marka insha Allah sida ugu jawaabteen heegi doona su'aalaha diyaar baan u ahay asxaabta hadda lagu sabirto xaleene commentiga like share idii ma sheegaysa haraa ugu xidhnaa inta inagu cusubna soo dhawaada ilaahay aad iyo aad soo dhawaada meeshu waa meeshini aad iyo aad walaal soo dhawaada marka Cabdikariim walaal aan iska bilaabana su'aalaheena waxaan ku weydiinaya su'aasha koowaad waxa ku leeyahay saddex waxyaabood oo aad qabatid xilliga firaaqada waa maxay haddii idin la wadaago saddex waxyaabood oo aan qabto xilliga firaaqada waxaa ka koow ah marka laga reebo salaada waxaan sameeyo waxay quraan markasta ilaa 5 page ama 5 book aan akhriyo quraan صح sidoo kale waxaan sameeyaa exercise يعني جيم وكذا jimicsi guriga ku sameeyo isagana ilaa barma sameeyaa sidoo kale waxaa qorshahayga ka mid ah maalintaas aan fasaxay inaan soo booqdo asxaabteedii qaraabadeedii intaba inaan soo booqdo ayaan qorshaystaa ما شاء الله عدك عادي أبان كلهم بلين يا شقة القبتي سؤال كلام بيديني أو حتى هو سؤال شلبات صدق وحيابات مركز مقشي عاد كنا حديد اللي لو ذاك والله المستعد saddex waxyaabooda markaan maqlo inaan ka كنا حديد ها warta ilaahayna uma keenay waxa kamid ah geerido kale qofka ma geerido waa wadnaxayso kale sidoo kale qarax oo kale إلهينا قمك ilaahayna uma keenay ما شاء الله sidoo kale waxa kamid ah waxyaalaha aad ka naxaysid qof saaxiibka oo xanuunsanay aad isku dheeraaday taasna marka walaal waxyaabaha ilaahayna uma keeno aan ka sii socono waxaan leeyahay su'aasha saddexaad saddex waxyaabood oo ku hirgalay ama aad ku riyoon jirtay noosh nala wadaag ها صدح waxyaabood oo aan ku riyoon jiray marka yaraa haddaan idin la wadaago waxa kamid ah inaan dad soo horfadhiisan karo public speaker oo kale okay qof dad wax maawelin kara wuxuu soo jeedin kara dadka dhagahooda qabsan kara inaan noqdo qof oo riyoon jiray aad baan ugu faraxsanahay inaan dad boqolaal qof ay channelkii ku xidhan yihiin maanta sharaf bay ii tahay weliba hadda waxa ii soo dhadhow inaan gaariyo maadho insha Allah ka tokona subscribers idanka ilaahay idanka ilaahay maalintaasna waxaan sameyn doonaa kale dad badan balyeenta aniga soo baliyay marka ugu horeeyo صح iyo dadka igu soo biiray okay waan gartay soo garan waan gartay aad baad maasantay walaalkay Mr. Cabdikariim su'aasha afraad ku weydiinaya waxay tahay saddex waxyaabood markaad maqashid aad ku faraxdid bal nala wadaag farxadda saddex waxyaabood oo aan ku farxo waxaa kamid ah markaan aqlayso dadka maadaama aanan joogin gobolkaygii aan hargeysa joogo waxaan ka imaado program gobolka ragga gobolkaas aan ka halkan waxbarashaan jooga marka lacag laysoo diro ama fiigii ama lacag dee xagga jeeba marka laysoo diro adigu ku jeclaa kulli xaal farxisan waa farxiyadii marka kale waxaa kamid ah markaan faraxsanahay markaan asxaabtayda la qaadanayo waqti jimco oo kale aan shan maando markaas kale waa farxad markaad insha Allah hadaad markaad ama gobolkaaga kala ku soo noqotay ehelkaaga u timi adee hooyo markaan safar ugu tago صح kasna waxay tahay farxad farxadda Allah kugu waariyo kulay wala Mr. Cabdikariim su'aasha shanaad aan ku weydiinay ugu dambeysay waxay tahay saddex waxyaabood oo adduunka ugu jeceshahay wana la wadaag saddex waxyaabood aan adduunka ugu jeceshahay inta adduunyada joogto waxaa kamid ah marka koowaad wahamigayga kamid ah inaan hooyada xaj geeyo ما شاء الله ما شاء الله ilaahay ku hormariya kulana waan halkan ka salaamaya inta doonayso waxaan jecelahay inaan hooyada xajka geeyo weliba aan u noqdo qofkii kaxaynayay anoo la socdo taas waa kow sidoo kale waxaa kamid ah
anigoo ay channelkayga ku xidhan yihiin 1 million subscribe maasha allah intaas qof soo booqatay Intaasina. sidoo kale waxaa ka mid ah anigoo dad waxaa jecelahay inaan dadka masaakiinta caawiyo maasha allah habeen dhaweyd subax dhaweyd waxaa ku dhacday ninkay dhakhtarka weyn habeenkii dhakhtarka weyn baa dee qofka ku ilaaliya la joogaa allaha caafiye aamiin allaha caafiye qofkaas markii aan kasoo baxay subaxdii anigoo xagga duusiga usoo socda waxbarashada ayaan waxaan ka arkay qof inuu go-aan tahay ayaan ku arkay dhakhtarka weyn agaarkiisa markaas igu soo cararay wuxuu yiri ilaahay ha kuu barakeeyo laxaadka ulaxaadlaha walaanka waxaa intiis way goonay waa koob shaah waa dhaxan cid ma haysto marka duruuf baa halkaa dhigtay dadkii uu caawin lahaa oo ka fadhiistay kaana waxaan leenahay ilaahay ha garab galo ha garab annagana ilaahay hana garab galo dadka dhibaataysan dhibaatooyinka master cabdikariin asxaabtaada waxaan ka codsanaya aniguna maanta inkastoo intay maanta nasiib u helay inaynu wada joogno asxaabtaada faraha badan ee kugu xidhan horta marka hore waxaan balyaan idin leeyahay sidaa fiican aa walaalkii cabdikariin ugu xidhan tihiin walaal inta kale aan idin raacinaya waxa weeye dawooyin iyo waxbaan iibiyaa insha allahu tacaala dee fikradiina waa nala wadaagi doontaan dawooyin waa herbal aad bay u faa'iidooyin badan bay leeyihiin waa kuwan kani waa colgate markay ilkuhu ama ku xanuuna dhiigga qanjo xanuunka marka aad leedahay waa dawada walaal waa faro leaf product kana waa haaraha iyo midmadowga iyo waxyaaba badan bay kaa daweynaysaa markaas cabdi qaaliga iyo finankaha markaas cabdi qaaliga waxaa leeyahay soo dhawaada aad iyo aad u soo dhawaada insha allah kuwii naga iibsadana waa noqon doontaan idanka ilaahay aad iyo aad baan idin qaleynaya xagga hoose aan soo dhigi doonaa lambarkiisa iyo halkaad kala xiriiri doontaan si degdegana waa laydinku keeni doonaa idanka ilaahay qayba dhibisna waa laydiin sameyn doonaa hamoogaaninaad leedahay dawooyinka dabiiciga kimikaalad kuma jiraan sidoo kale dawadan anigu waan qaatay waan isticmaalaa su-aashii maxamed aan weydiin maxamedow in badan bad halkan igala soo noqotay garabkay kasoo noqotay waana kaaga mahadcelinay sida qiimaha badan aad iga soo jirtay martiqaadka bal maxaad dareemaysaa markaad kasoo muuqatay youtube insha allah wallahi horta aad baan u faraxsanahay kasoo muuqadkaan kaala soo ag muuqday aad iyo aadna waa ku hambalyeynaya insha allahu tacaala wixii intaa ka badan insha allah dee waxaan kaala caawin karaa aniga xaggayga insha allah kaala caawinaya marar badan oo marar badanna insha allah markaan faraaqada helo waa ku iman karaa marka aad iyo aad ugu mahadsantahay saaxiibayaal intaas waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeenu 3 su'aalaad ومانتو نوبدي محمد عبد الكريم أنا عبد الكريم عبد الله يوسف عبد الكريم دل هلكن laga daawanaysan wadada Professional TV fadlan subscribe iyo comment wadinki dadka wax lagu yahay idinka wax ku nahay anagu idinka la'aantiin xawili idinka la'aantiin madaxan xamuul ayaan leedahay marka qof walba dadkiisa meel gaarsiiya meel fiican gaarsiiya qalka share kareeya like kareeya leegtoon dhiirigelisa subscribe fiican ku qorbiso marka meel fiican gaarsiiya muuqaalo qurux badan baa soo wadnaa oo kuwa ka dambeeya haddii noqdaan vlogs haddii noqdaan muuqaalo kale challenges marka soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo dunida ka joogtaan waa mahadsantihiin